السلام عليكم انجينير عدو waxaan ku weydiinaa su'aasha waxa weeyaan sidee ay u dhici doontaa doorashada la filayo cod iyo qof in ay ka dhici doonto Soomaaliya maxayse ra'yigaaga oo kaga duwan yahay mase aragtidaada ay ka tahay doorashooyinkaas la qaban qaabinayo soo socda بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد والسلامة ددوينها في السنة كلب كان صوماليات أنا جوحي لتهي الدوهان إن أود عدو دورش دوا تاجر سن هاي ون مان فوت وتاجر سن هاي واي مدبدن أيال رادين هاي إن la doorto shacabka qof iyo cod ay wax doortaan laakiin in la dhigo meelaha bannaan oo muqdisho kale wadamada goboladan oo dawladdu horta ay ka yihiin shabaabka waayo 300 iyo something inay wax doorataa waxaa ka fiican 1,000 qof inay wax doorataa second option qaybta labaad waxa weeyaan last time konton iyo koow xildhibaanka dooranayay marka waxaan dhihi lahay konton iyo koowgii oo la isku daray inta xildhibaan ay yihiin waxay imaanaysaa 10,400 ay imaanaysaa 14,400 ismartiibaa la isugu geeyo madaxweynaha doortaano baarlamaanka ha doortaano xildhibaanadana ha doortaano so in that way waxaa looga kaaftoomaa lacagtii laaluushka oo xaaraanta la bixinayay ogaadana Soomaaliya waxay meel la gaari laadahay xildhibaanka codku gadana madaxweynahana codku gadana waa xaaraan sheekhyabaan leenahay culumaa u diinaan leenahay weligood kama hadlin rashwa la yidhaha ayad kitaabka ku jirto waa marka waxaa meel la gaari laanaa lacagtaas xaaraantaa waaye in la afood gareeyo 14,400 inay wax doorataa way ka fiican tahay 300 oo qof inay wax doorataa teeda kale one man foodku fiican yahay hadii degmo walba la geenayo baaladka inta nabadgelyada ay wadanka ka tahay one man food marka la yiraahdo waxaan kaloon ku talin lahaa 4.5 kan aadna la daba ordaysaan xaq ma ahane xagaas waqtigiisa waa la dhaafay xagaas la iska dhigo xisbiya jiro xisbiyadaas degmo walba qofka ka soo baxo ilaa labo walaal ay ka soo baxaan labadaas aan rul garaynayso